السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha ku xiran Garaadshada Tube. Caba waxaan idin wadaa koorso gaaban oo markaa aad iyo aad u anfici doonta ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda jaamacadda ku cusub, ardayda dugsiyada sare wada ilaa ardayda galaasmanka dhexe, ama arday walba ama shakhsi walba ee baxthi ama research ama cilmi baaris loo diraa sida sahalka ah kaga baaran karo cilmi baaristiisa khadkan wax walba laga heli karo. Haddaba aynu gudagalno diyaarinta buugaagta assignmentiska iyo waxyaabaha la midka arday jaamacadda tahay buug jaamacadda ku sugayo difaaca doonto assignment baa jiri doona. Haddii arday dugsiga sare dhiganayna aad tahay waxaa lagu diri doonaa layliyo ama cilmi kororsi wax la yiraahdo, ama adigu ku dhaada waxaad u baahnaan doontaa ama jaamacadda ama iskuul wade in aad diyaarsato imtixaankaaga adigoo qoranay su'aalo iyo jawaabo aad u baahan tahay si saamirina aad u qoranaysid. Haddaba waxaynu galaynaa casharkan. diyaarinta buugaagta assignmentiga cilmi baarista maxaad u baahan tahay markii aad rabto in aad diyaariso qodobadaas sida buugaagta layli ama exam preparing, inaad sameyso imtixaan aad diyaariso, warbixino, daraasad, cilmi baaris ama wixii la mid ah. waxaad u baahan tahay qodobadan soo socda. kow, waa inaad lahaataa subject ama ujeedo, waa inaad lahaataa micnaheedu waxa ay tahay waxa inaad qabato aragto waa inaad taqaanaa. tusaale ahaan buug jacayl baad raadinaysaa, tusaale ahaan buug biology baad raadinaysaa, tusaale ahaan buug hebel baad raadinaysaa ama xisaab ama carabi wuxuu raba noqday. waa inaad marka hore lahaataa subject ama ujeedo ama hadaf, waa inaad lahaataa. kow, waa inaad haysataa smartphones ama computers. telefoonada casriga ahi waxa ay noqdeen sida computerka oo kale telefoon u shaqeynaya. haddii computer aadan haysanin boqolkiiba 60 computerka waa laga maarmi karaa. 60 boqolkiiba computerku waad ka maarmi kartaa. haddii aad haysato telefoonada smartiga ah haddana qaadkooda uu wanaagsan yahay, internetkooda uu fiican yahay. 3, good internet ama qad fiican waa inaad haysataa. micnaheedu waxa ay tahay qad kaa tagtagaya ama aanan awood lahaynin ama iskan si ah ma fiicna. waa inaad haysataa qad tayadiisu ay fiican tahay oo aad u sareeya. sidoo kale careful in ahaataa adiga ku dhaado wax diyaarinaya, waa inaad be attention ahaato ama taxadir waxaan aad diyaarinaysid inaad ka lahaatid. sidoo kale waa inaad lahaataa Gmail, muhiim Gmail inaad lahaataa. sidoo kale 7, checking inaad sameysaa, inaad hubiso markii aad shaqadii dhammayso waa inaad iska hubisaa wixii aad akhrisaa isha marisaa. wahagaag daawadayaal, waxaa intaas ku soo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad, maadaama casharka haddii uu tirabataa aynan wada fahmaynin. waxaan rajaynayaa in aad fahantay waxyaabaha lagaga baahan yahay markii aad sameynaysid research ama aad diyaarinaysid imtixaanaadka buugaagta cilmi baarista caalamiga ah iyo wax allaala wixii aad kaga baahato internetka. 7daasi qodob haddii ay ku dhammaystirnaadaan waxaan rajaynayaa in qaybaha kale casharka soo socdana sii gudageli doono hadduu ilaahay nafta nagu simo. daawade waxaan ku xasuusinayaa muuqaalkan aad xaqiisa siiso oo like saabto dabcan haddii uu ku cajabiyey. sidoo kale inaad commentigaaga noogu soo darto waxyaabihii aad u baahan tahay ama aan jeceshahay inaan kuu soo diyaariyo. sidoo kale waa inaad YouTube-ka subscribe saartaa oo aad share dhahdaa la wadaagta asxaabtaada. mahadsanid. casharka xiganta aynu ku gaari doono waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.